السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروحان شوقنا مقالدي لامية بنيد جروي وحان أخريي قار كمذا كومنتيادي إني تكسف العلسان مركان اللي حاجات يقولوا تلين لهذين عم بوقضوا مال كمذا ماليه هذا يقولوا تلسان أما ماشي يقول مهم سندنا هذا أنا سعودة وضدنا بقى أداء مركا إسلا سعود ونكسر إن شاء الله. waan nimid meeshii aan idiin sheegayay hadda ayaan joognaa waxaana la yiraahdaa Amal Real Estate wixii faahfaahina ila socda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. صديق واد بنكو سلامية. بنا فارح حبيبي أنا وكو أبترني واد بنكو سلامية. نيل عانا ووحوي عن حتى عادي أويس هذا كرنا يواد بتهاي مركز واد بنكو سودوين يا ولا الغالي. كو سودو جودهان مقالة جروي جارهان حافظ عصري أمل فيلج شركة دو أمل ريال استيت هذا سودو ولا المعد. أدو ما سنتهاي إنجنير عبد الله ودو هاي جرو حاب اللي يقول ومال سحراه. هاي. كل كل barwaaqa ana inaan soo galay baad moodaa oo abaartii xataa meelaha kale soo arkay aad marka ma garow waan joognaa horta mise waynu ka baxnaa garow xaafad ka sii duwan oo casriya weeye ilaahay horta abaartaas waxa way si guud bay noo haysataa ilaahay dhamaan ummadeena abaartaas ka saaro aamin si gaar ahaanna waxaan filayaa kulli magaalada ugu yaraan waxa weeye meelaha aad dhihi karto inta timaadid inaad viewgeeda aad ku raaxaysan karto aad ma aragtay quruxdeedana iyadu soo bandhigaysa ayay kamid tahay halkan meesha hadda marayno waa beertii guud loogu talagalay deegaankan Amal Village oo insha Allah shacab weynaha soo degi doona magaaladu ay ku damashaadi doonaan xaafadan si fiican soo dhawow waxaan kugu leenahay adigu laftigaaga waxa weeye kulli waxaan filayaa nin ganacsadaana waa tahayo dhinac kale oo waxa weeye فراغ هرب وصي قاعد دونتا إن شاء الله هذا مركز تسيب حس إن شاء الله. سيف يعني. سودو مركز ولا. ليش مال قريه هذو رقيسين ودوبيله وحكي كذا كرمتها مسوا تذكر الله ضم الله قلت لك عليه. ما يا دوبيله هاجي وحوي جناحسي هاجي لفت جيسو. تمشي نروح على حرير جناحسيو. وحاجة ما حتكفرن دونتا. وحوي بارتي كلو كم إذا ما قررنا سجناحسي هاجي. حافظ هذا إنه كواج يقول دونتا إن شاء الله. والله بدأ بوان بحنا وحن بحنا. دينا عنا وحن كبحنا وحوي قريه يو ما ركت أدو قريه جيسي. من دوك كمان كل ورقة نتفريسة. سيدو كلنا واحد بحنا إن جواب جناحسي أي دوتكم ما ركت مركها. ماشي كهل كران. ومركها يجريو ده هيستا أي مقرنا ساس لو جواب جناحسي يكون جناحسي كران. إنجنير بالهرت تدوبي وهي نوضم بيسو. هي. دوت كي عن كي متباب واحد ركونا غلا. لكن بالهرت ماشي ديجان كان نقول لهيد. بان سكتش جريني يا إن سودي كريه إن كله. إن شاء الله. كنت هنا ماشي المكان سوق عليه ده بيريه اسكندنافيان. أدي. راهم وضعك سويدن. أدي. يوجيهن. أدي.
halkan xataa roob macmalaaba ka socdaba waxaad waraabinaysaan cagaarkii caadiga ah waraabinaysaan waraabinaya bahlashaani waxa weeye waa sprinklerski weeye oo si maartay system ahaan iyadoo aan maartay tuubo loola tagay iyaga si iskeeda isku waraabinaysa guri walbana waxay insha Allah loo yeeli doonaa sidaas oo kale water supply iyo maartay wali modern casri insha Allah si fiican marka soo dhaw walaal qaali insha Allah kursiga galabta ku dhigayna halkan insha Allah waxa weeye adaa waxa weeye halkan iskaga leersan doontaa insha Allah ma sha Allah geedahani maxay yihiin iyagu ma geedo caadi ah mise kuwa midhala ku jira may hadda kuwan waa kuwa har ah weeye noocyo badan oo kala duwan weeye geedahan waxa loogu talgalay inay aad inta u weynaadaan ay har yeeshaan si fiican waxa kamid ah hadda geedkan ka dambeeyo kala dhaashan la dhaha si fiican oo sidaad aragtid waxa weeye saa u dhalaalaya ka dhawa dhaashan wax loo bixiyay saliid baan marsan waa subkana weeye si fiican ma garat mid kale moogana la dhaha jiro isagu waxa weeye iska maaragtay isaguna geedaha aad ka maaragtay calaamaha u saaro hoosaadka si fiican kuwan oo kale baarkiska iyo meelaha waaweyn baa loogu talgalay laakiin xaafaduhu waa ka duwan yihiin kuwa flowers iyo kuwa maaragtay markaas aanan jirid weyn yeelanayn ay badankood leeyihiin marka soo dhaw walaal waxaan maqlay Puntlanderka kaliya meesha wax ka gadan kara arinta maxaa ka jira ma jirto meeshan Soomaali weyn oo dhan baa u siban meeshan Soomaali weyn oo dhan baa u siban hatta ajaanib baa noo yimaada Soomaali weyn iska ajaanib aan Soomaali ahayn baa noo yimaada meesha guriga ka raadiyo iyaga laftigooda hatta qaarkood laga gaday si fiican okay gurigeeni baynu hadaba aadaynaa guriga maartay aan degi doonana bal waan iska jeeg garayn aan soo tuso insha Allah aan soo tuso insha Allah ayo walaal soo raac ayo soo dhaw sidoo mar kale gurigan hadeer aan hore u galayno waxa weeye guri kamid ah guryaha shirkadda Amri Real Estate alisto ee xaafadda Amri Village ku yaala gurigan iyo wuxuu ka kooban yahay insha Allah gudahan uu gali doonaa sida aragtid deerkiisu waxa weeye deerkan ay dhowr gaari ama laba gaari ay gali karto halkaas waxa ku yaala baarkii yarka ahaa iyo meeshii maaragtay adreysan lahayd ama kuna san lahayd oo banaanka galabtii oo kale iyo subaxdii aad ula soo bixi lahayd xaafadda iyo idinku aad kuda caawin lahayd ama kuda casriyeyn lahaydeen si fiican gudaha u soo galnaa insha Allah waxaana laga yaabaa gurigan ku sheegayo aad maaragtay inaad furiis hore u sii qaadatid inuu noqdo insha Allah kuna cajimid doono insha Allah aan kula eego aye soo gal insha Allah soo dhaw sababteedu halkan waa koridorkii grid ya ditoos looga soo galo gurigan oo ka kooban yahay 3 qol oo jiif ah fadhigeedii musqulihii gudaha ku jira iyo jikadii surface insha Allah gudaha u sii galno insha Allah dan kaaga bilaabo qolkan halkan ugu horeeya qolkan waa qol kamid ah qolka jiifka badanaa waxaan u kala bixinaa markii deegaanada loo waxay qolkii wiilasha iyo kii gabdhaha ayaanu kala dhahnaa marka qolkan hadaad deegaankiisa ka aragtay sida bluega waa wiilkii weey marka qolkan waa qolkii wiilasha oo kale ayuu noqonayaa dhinacan kale oo dariskiisa waxa ah isaguna qolkii kale oo waan dhihi karnaa waa qolkii gabdhaha ama maaragtay isagana qol kale oo jiif ah isagana waxa weeye qolka gurigan ka kooban yahay ayuu kamid yahay deegaankaas aad u qurux badan ayuu leeyahay iyo maaragtay deegaankaas maaragtay kalarku oo kala bedelan yahay dahab weeyaan kan aad iyo aad marka gabdhuhu dahab aad ka wadaan marka malaha badan aad waxa aad ku dalbadaan gabdhuhu ay jecel yihiin kalarka dahabka iyo kambankiga ka mid marka kii dahabka hadda uga dhigna kan insha Allah soo dhaw walaal xagan kale waa qolkii saddexaad qolkan waa qolkii la dhihi karo waa qolka maaragtay guriga ku dooq madaxtooyada guriga ku dooq lahayd marka soo dhaw insha Allah qolkii production wax soo saarka qolkii wax soo saarka way production magacaada u bixiyiba saasan ugu bixin doonaa annaga hadda ka bacdi wuxuu noo noqon doonaa magac ma aragtay marka hal haysa marka qolkii production ka weeye qol aad waasic weeye 4.5 to 4.5 suuligiisa gudaha ku leeyahay 4.5 Soomaalida ma ti Soomaalida ma tan waa cabirkii weeye gudaha wuxuu ku leeyahay ma garanaysaa suuligiisa musqushiisa musqushiisi oo laba dhinac kala ah dhinacana waa halkaan waa dhinaca fadhigii halkaas waa dhinaca qubeyska oo dhinaca kale iyaduna kaas oo eegaysa أنا أرى وش بحره. هالكنا دي وحكي على. هالكنا دي كبركي ماشي وحوي دينك اللي سارني علاقة كان لفتي يسوى هذه علاقة خلف خابضته. يوم ما ركتي دي وحلاقيها بدي أظن إن ما دام قربها كلمات. تايو كله. dadku wax weey kala cafas badan yahay cafashka qaarkiisba wax ka shanaysa wixii maarta ka soo dheeraada oo kala ka shanaysa in kabaha la geliyaa badmoodayba kabaha laftigiisa waa kala weey kabaha laftigiisa waa saaran xitaa dhinac wax ka saaran kartaa isaga soo dhaw xagan waxa weeye
isagoon laftigiisa qolkii nasashada okay kaasi kii production ku ahaa okay kan waa kii fadhigii weeye fadhigu laba qaybood ayuu kala qaybsamaa qaybna waxa weeye fadhigii caadiga la fiirsanayay waxa uu telefishinkiisa xiisi leh dhinacna waa diningkii oo diningkii qadadii weeye meeshii lagu qadaynayay weeye fadhiga aadka u qurux badan iyo design-ka aadka u qurux badan ayuu waxa weeye ayuu leeyahay bal fadhiisi hadaan fadhiga isku wareysanay waaya soo dhawow alaabtu waa alaabtii dad ilaahay wax siiyay ma kula dismatay mise ما هو بيجابنا هاي waxa weeye sidaad u taaganta lafahaagi hurda bahasay skeletonki sidii loogu talagalay uu noqonaya iska bedeli maayo ma sha Allah marka soo dhawo walaal qaali waxa weeye ku soo dhawo mar kale iyo saddexaad mar afraadba si guud ahaaneed magaalada waxa weeye Garowe si gaar ahaaneedna waxa weeye xaafada Amal Village ee shirkadda Amal Real Estate waan ku soo dhaweynaa insha Allah aad ma santahay waxaan filayaa inuu insha Allah aad maaragtay aad gurigaan iyo guriyo la midaba oo aan ku tusi doonaba oo aad ku cajabin doono insha Allah anu waxa weey ku deenmayna la faraha jab ku ridno insha Allah nin weyn oo ganacsaday waxa weey xiisa ku filan baa tahay insha Allah maanta waxaan joogaa Amal Real Estate waxaana ku arkay qalab waagi aan Norway joogay aan ku shaqeyn jiray oo waxa kamid ah bahashan maartay forkliftida la yiraahdo runtii aad baan ugu xiisay bahashan waagi aan ka shaqeyn jiray aad baan u jeclaan jiray bal maanta waxaan codsaday inaan yara dhaqaajiyo oo yara kaxeeyo aad baan idin salaamayna bahashan ninka ku shaqeeya waa nin ayaan badan weey waa shaqo aad u fiican oo shaqooyinka lagu caajisin bay kamid tahay alaabtan aad maartay waxa loogu talagalay wixii xamaalintu ay daldali jireen adoo kaliya inaad daldasho oo kolle cirka geyso kolle dhulka geyso alaabta ku rastaysa loogu talagalay